wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka safmarka corona oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo laba kacleeyay Soomaaliya. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta guud ahaan cudurka coronavirus dadka laga helay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 100 ruux kuwaas oo ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho, deegaanada Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabelle isla markaana sare u kacay maalmihii ugu dambeeyay cudurka safmarka ah ee corona gudaha dalkeena Soomaaliya. tirada 24 saac ugu dambeysay laga baaray cudurka safmarka ee corona guud ahaan wadankeena ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo 100 ruux. 92 kamid ah waxa laga helay shacabka ku gobolka Banaadir, hal waxa laga helay Hirshabelle, 4 Jubbaland, 3 Koonfur Galbeed, 63 kamid ah bukaanadaasi waa lab, halka 37 kalena ay yihiin dhidig. dhimashada guud ee 24 saac la soo dhaafay ee wasaaradda caafimaadku diiwaangelisay waa 9 ruux. tirada guud ee laga helay cudurka safmarka ee corona tan iyo markuu soo cagdhigtay Soomaaliya ayaa gaaraya 5373, halka bogsashadu ay gaarayso 3750, halka dhimashada tan iyo intuu soo bilowday cudurkan ee Soomaaliya soo gaaray ayaa waxa uu geeriyootay ilaa iyo 163 ruux. cudurka safmarka ee corona oo bilihii ugu dambeeyay ahaa mid ka sii yaraanaya Soomaaliya ayaa hadda u muuqda inuu soo laba kacleeyay isla markaana farabaan ku hayo shacabka Soomaaliyeed. wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adaha caafimaadka ayaa waxa ay ku dadaalayaan sida ay uga hortagi lahaayeen cudurkaasi. Isbitaalka Martini ayaa waxa ku jira bukaano aad u fara badan kuwaas oo haleelay cudurka safmarka ah ee corona. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya Marwufuziye Abikar Nuur oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka coronavirus ee dalkeena Soomaaliya. Marwufuziye Abikar Nuur oo murahaasi ka hadlaysay ayaa tiri wasaaradda caafimaadka oo la wadaagayso warbaahinta si joogto ah galab walba bacda العصر shalay 5 مغربك ilaa iyo saaka subaxii salaadii 6 aroornimo isbitaalka wuxuu qaabilay 16 bukaan. hal qof waxaa la geeyay ICU-da, 9 qof waa bukaan jiif, 6 qof ma darayn waa la taliyay waxaana lagu celiyay guryahooda si ay isu karantiilaan, dadka iska dhowraan, talooyin la siiyay iyo dabagal. tirada dhimashada marka shalay maqribkii 5 galabnimo ilaa iyo saakay 6 aroornimo tirada qof ee dhimatay waa 5 qof. ilaahay u naxariisto, sabir iimaan reerahoodii Allah ka siiyo. hal qof wuxuu hore ugu jiray ICU-da, 4 kale qofna waxay ahaayeen dad bukaan jiif ah oo jiifay isbitaalka. geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Marwufuziye Abikar Nuur ayaa waxay wax kama jiraan ku tilmaamtay in 30 qof ay oksijiin la'aan ugu geeriyoodeen isbitaal Martini ee magaalada Muqdisho kuwaas oo qabay cudurka COVID-19 waxayna wararkaasi ku tilmaamtay mid been abuur oo lagu baahiyay baraha bulshada. sida aad ka fahmaysaan tirada aan idin sheegayo ma jirto, waxna kama jiraan, waa war aan sal lahayn in xalay isbitaalka Martini ay ku ruux baxday 30 qofood. waxaan rabaa marka inaan bulshada u sheego in xogta ugu dambaysa ee caafimaad ee COVID-19 mar walba aad ka sugtaan, aad weydiisaan wasaaradda caafimaadka ee aan la dhageysanin waxyaalaha beenta u badan ee baraha bulshada lagu soo qoro. dadka sameynaayo warka aanan saxda ahayn bulshada dhib ayay u keeni karaan, wax faa'iido ah oo ku jirta ma jirto. in dadka la sii cabsi geliyo waxaad dareemaysaan oo mar walba ku celcelinaa wacyigelinta in qofka markii uu xanuunsado ama calaamadihii uu dareemo inuu soo raadsado rug caafimaad, isbaaritaan lagula taliyo, kadib uu daawo raadsado siday xaaladaha kale yihiin. dadka in la cabsi geliyo waa khalad, qofka in laga sii dheereeyo. dad badan oo waxaa jira cudurkii haaya oo aanan isbitaalada tegin. dadkaas axsaan uma sameynayaan dadka beenta faafinaya argagax ay khalkhal ku ridaay, balse waa ka sii fogeynayaan qofkii inuu isbitaal raadsado. fadlan aan iska ilaalino wax bulshada wax u dhimaan. haddaadan waxba u taraynin, waxba ha u dhimin, ha faafinin war aan sal iyo raad lahayn. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.